meesha waa gudaha dalka Soomaaliya. Sanadkan waa 1943 waxaana ka socda gumeysi arxan daran, waxaana wadooyinka daadsan meydad fara badan, waxaana si aan gambasho lahayn loo gumaadaya carruur iyo haween. Tani waa documentary dhammaystiran oo ku saabsan guud ahaanba taariikhda Soomaaliya laga soo bilaabo tan iyo markii ay dadka bilaabeen in ay degaan dhulalka Soomaaliya ilaa waqti xaadirkan, waxaana dalka intii u dhaxaysay intaasiba soo maray haliyeeyo madax iyo hogaamiyayaal kala duwan, wuxuuna dalka intaasi marayba marxalado iyo siyaasado kala duwan, sida inuu mar uu noqday dalka mid ka dhaxayfaya guud ahaanba qaaradda Afrika, iyo inuu dalka mar uu gaaray meeshii ugu hooseysay xilligaasi dhaqaale ahaan, amni ahaan, siyaasad ahaanba, iyo sidoo kale inuu siyaadiyey adeegsiga qabiilka oo si xoogan ugu dhex fiday gobolladii dalka. taasi oo ka dhigan in wax ka yar 10 minit aad ku ogaanayso taariikhda Soomaaliya oo dhan. Soomaaliya waxa ay ahayd Islaamka ka hor xarunta ganacsiga adduunka, waxa ayna xiriir ay la lahaayeen ummadihii ugu xadaaradda fiicnaa xilligaasi sida faraacintii Masar, Furus, Romaaniya iyo dalalkii deriska la ahaa ay ku jirto boqortooyadii Saba iyo boqortooyadii Xabashida. waxayna Soomaalida ay ahaayeen dadkii ugu horreeyay ee bilaabay dhaqashada geela, maadaama ay ahaayeen dad reer guuraa ah, waxayna caabudi jireen ilaahyo badan, mana aysan aaminsanin hal ilaah ilaa uu ka soo gaaray nuurka diinta Islaamka. waxaa la sheegay in qayb ka mid ah saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ka soo degeen magaalada Sayla, sidaasina ay ugu faafiyeen gudaha dalka Soomaaliya diinta Islaamka, waxayna Soomaalida sidaas ay ku qaateen diinta Islaamka sayf la'aan. Axmed Ibraahim Qaasi ana Soomaalida u taqaan Axmed Gurey waxa uu dhashay sanadii 1507 ee Soomaaliya, waana suldaankii boqortooyadii Cadal ee muddada dheer la dagaalamayay boqortooyadii Xabashida iyo Kirishtanka. waxaanu ku dhawaaday inuu jibay boqortooyadaasi kumanaanka sano soo jirtay, waana hogaamiyihii ugu horreeyay ee sameeyey isbahaysi looga hortegayo Kirishtanka, isagoo mideeyey Hindiya, Masar, Turkiya iyo Soomaaliya. waana kadib markii uu dhintay boqorkii Xabashida ee Najaashi, maalin geeska Afrika ku faafay oo ku xoogeystay Kirishtanka. Soomaalidana waxay la dagaalameen Kirishtanka dagaalo waaweyn oo wax ka bedelay taariikhda. saldanadii Ifad oo ay boqortooyadii ka horreysay boqortooyadii Cadal ayaa wax ay dagaalo waaweyn ay ku qaadeen boqortooyadii Xabashida iyo Kirishtanka. kadib markii ay dhacday boqortooyadaas waxa ay imaaday saldanadii Cadal, taasi oo xoogeystay markii uu hogaaminayay Imaam Axmed Gurey. qarnina ma uusan dhammaanin ilaa wax ay ahaayeen kuwa la dagaalama Kirishtanka, taasi oo rabay inuu diintiisa uu ku faafiyo geeska Afrika. imaamkana waxa uu kula jiray dagaalo muddo dheer socday, waxa uuna mideeyey Masar, Hindiya, Turkiya iyo Soomaaliya, waxauna ku dhawaaday inuu cirib tiro boqortooyadii Xabashida. waana haddii uusan celin lahayn ciidamadii gurmad ahaanta ee u soo direen Biicad, taasi oo ahayd mid ka mid ah khaladaadkiisii. waxaana dhacday arrin uusan filanaynin, waana kadib markii uu Boortaqiiska uu dib ugu soo laabtay dagaalka, weliba markaani waa ay ku duuneed sidii hore, waxaana soo ifbaxay casriga iyo qoryaha. imaamkana waxa uu ka hortegay asagoo u dagaalamaya hubkii hore. allah u naxariistay imaamku waxa uu dhintay sanadkii 1543. waxa uu ahaa imaam hogaamiye abaanduule iyo sheekh diinta Islaamka ku faafiyey geeska Afrika, waxayna carabta ku sifeeyeen inuu u dagaalami jiray sida saxaabada oo kale, waana in badan oo ka mid ah dadka Soomaalida aysan wax ogeyn taariikhdiisa. Sayid Maxamed Cabdulle Xasan waxa uu dhashay 7 Abriil 1856, waxa uu xifdiyey yaraantiisiiba Qur'aanka asagoo 9 sano jir ah. sayidka markii uu soo weynaaday ayuu waxa uu cilmi u doontay magaalada Makka, oo xilligaas ay xaruntii cilmiga iyo magaalooyin kale oo dhowr ah. markii uu ku soo laabtay dalka ayaa sayidka waxa uu cunto gumaysay sidii uu gumaystaha ugu faafinayo dalka gudihiisa diintiisa, waxayna ka fureen gumaystaha gudaha dalka kiniisada ay dadka Soomaalida ay ku barayaan diintooda. waxaana jirta mid ka mid ah sheekooyinka ugu caansan ee laga soo wariyey sayidka xilligii gumaystaha, in maalin maalmaha ka mid ah uu arkay sayidka cunug yaris ah, markaas ayuuna weydiiyey magaciisa. cununkii ayaa ku yidhi waxaa la yidhaahdaa John. sayidka ayaa ku yidhi magacaagii horena maxaa uu ahaa? cunugii ayaa ku yidhi waxaa la oran jiray Cali, taasi oo sayidka ku abuurtay sumad gumaysidiida. waxauna bilaabay sayidka olole ugu hortegayo gumaystaha, waxauna aasaasay ciidamadii daraawiishta oo la dagaalamayay gumaystayaashii Ingiriiska, Talyaaniga iyo kuwii Xabashidaba, heer uu gaarsiiyey inay diyaarada ay ku soo weeraraan. oo Soomaaliya ayaa noqotay sanadkii 1920 wadankii ugu horreeyay Afrikaana ee lagu weeraro diyaaradaha dagaalka. dagaaladii uu sayidka la galay gumaystaha waxaa ugu caansanaa dagaalkii uu galay 1913 ee la magac baxay Dhul Madoobe, oo uuna ka tiriyey gabaygiisii caanka ah ee Kufil. allah u naxariistay sayidka waxa uu dhintay sanadkii 1920. geeridii xanuunka ahayd ee sayidka waxay soo duulayaashii u suurtagelisay inay si aan kala joogsi lahayn ugu soo qulqulaan gudaha dalka Soomaaliya.
kadib markii ay soo duulayaashii si dhammaystiran ay u soo galeen dhammaan gobolladii dalka ayna Soomaaliya u kala qaybiyeen 5 qayb. Waxay dadka Soomaalida ay la kulmeen gumaysi arxan oona loo meeldayn sheekooyinka ugu layaabka badan ee laga soo xigto xilligii gumaystaha. Waxaa ka mid ahaa in dadka ay gaadiidka gadaal ugu xiraan kadibna lagu jiido gaadiidka iyo sheekooyin kale oo aad u layaab badan. kadib markii ay ku xumaatay dadkii Soomaalida ayna u dulqaadan waayeen gumaysigaasi arxanka daran, waxaa ka soo dhexbaxay dhallinyaro markaas u muuqatay kuwa gumaysidiida, waxayna isu urursadeen sidii ay u xoroobi lahaayeen, waxayna si hoose u wateen howlahooda gumaysidiidka ah. Dabcan taasi ma mognin gumaystaha, laakiin arrinta layaab kale ayaa waxay ahayd in dhallinyaradaasi ay sameeyaan urur lagu marin habaabinayo gumaystaha si uusan u ogaan ururka rasmiga ah. Waxayna ka koobnaayeen dhallinyaradaasi 13 dhallinyaro, waxayna kala ahaayeen Abduqaadir Sheekh Sakhaawudiin, Maxamed Nuur Siidi, Yaasiin Xaaji Cusmaan, Xaaji Maxamed Xuseen, Ismaan Geediraage, Dheere Xaaji Dheere, Daahir Xaaji Cismaan, Xasan Maslax, Maxamed Cali Nuur, Maxamed Faarax Hilowle, Xaaji Maxamed Cabdullaahi Xayeysi, Abdoo Maxamed Cabdulle iyo Maxamed Cusmaan Baarbe. laga bilaabo sanadii 1943 waxaa xisbiya laga furay dhammaan gobolladii dalka, waxaana batay taageerayaashii iyo qaybaha kala duwanaa ee bulshada sida dhallinyarada, odayaasha, culimada iyo dumarka. Sanadii 1947 ayaa waxaa la go'aansaday in isbeddel lagu sameeyo magaca xisbiga, waxaana sanadkaasi laga dhigay magaca SYL, waana halka uu uga baxay magacaasi. wax badan kama aysan soo wareegin, waxaana sanadii 1960 si dhammaystiran u xuroobay dhammaan gobolladii dalka. Maanta oo laga joogo maalinkii ay dhallinyaradaasi isu urursadeen xoreynta gobolladii dalka 81 sano, waxaa xusid mudan inaysan weli dhallinyaradaasi ay ka bixin maankeena, waana sababta maanta idinku soo gudbiyey qisadooda. sanadii 1960 waana kadib gumaysiga dalalkii reer Yurub, waxaana markaas madaxweynihii ugu horeeyay noqday Aadan Cabdulle Cismaan. weliba 1 Luulyo 1960 Aadan Cabdulle Cismaan wuxuu ku dhashay magaalada Beledweyne. sanadii 1908 ee Soomaaliya waxa uu waxbarashadiisa oo idil soo qaatay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. aynu imaanno waqtigii uu xilka hayay Aadan Cabdulle Cismaan. waxa uu xilka hayay 1960 ilaa intii u dhaxaysay 10 Diseembar 1967, waxaana dalka 7 sano uu ku jiray xaalad soo kabsasho ah maadaama uu sanado yar ka hor u qaatay madaxbannaanidiisa. kadib markii ay dhammaatay 7 sano ayuu Aadan Cabdulle Cismaan xilka ugu degay si nabad ah aan lahayn dagaal, oo markaas Aadan Cabdulle Cismaan ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Afrikaan ah ee xilka ugu dega si nabada. kadib dalka waxaa ka dhacay doorasho, waxaana doorashadaasi ku guulaystay Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo nasiib u yeeshay inuu noqdo madaxweynihii labaad ee xukuumadda Soomaaliya. Cabdirashiid Cali Sharmaarke wuxuu ku dhashay magaalada Xarar Dheere 1919 ee Soomaaliya. wuxuu waxbarashadiisa uu soo dhameeyay sanadii 1936. intaas ka dambeeyayna uu soo maray xaalado kala duwan sida inuu mar uu noqday ganacsade, kadib shaqaale ka shaqeeya howlaha dowladda Talyaaniga ee maxkamiyadda. intaas ka dambeeyayna wuxuu waqtigiisa ku qaatay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. aan u soo laabanno waqtigii uu xilka hayay Cabdirashiid Cali Sharmaarke. asagana waxa uu xilka hayay 1967 ilaa 69. sidoo kale asagana xilligii dowladdiisii rayidka ahayd waxay la dhibaataysnayd adeegsiga qabiilka, laakiin waxay wax waliba sii adkaadeen Oktoobar 15 markii maalin cad la dilay madaxweynihii dalka ee Cabdirashiid Cali Sharmaarke. wuxuuna dalka u galay xaalad qalqal amni ah kadib 7 maalin geeridii madaxweynaha ee Cabdirashiid Cali Sharmaarke. ciidamadii xoogga oo ka faa'iideysanaya faaruq dalka ayaa waxay dhammaan ay gacanta u dhigeen xarumihii dowladda, waxayna shaaciyeen in waqtigaana laga bilaabo ay iyaga yihiin hoggaanka ugu sarreeya dalka. waxaana afgamigaasi hogaaminayay Aadan Maxamed Siyaad Barre. waxaan aynu dib ugu noqonno taariikhdii uu lahaa. taariikh uu dhashay Siyaad Barre si rasmi ah looma oga, waana la isku khilaafaa. isagoo yar ayuuna waayey waalidiintiisu, waxuuna la noolaa adeerkiisii Xirsi Barre ilaa asagana uu ka dhintay. mar kale ayuuna Siyaad Barre u waayey adeerkiisii. intaas ka dambeeyeyna waxa uu ka soo tegay baadihii si uu uga mid noqdo askar lagu qorayay xerada tababarka ee Beledweyne. markii uu tababarka u dhammaaday waxaa la soo bedelay magaalada Muqdisho si uu u qaato tababar dheeri ah. intaas ka dambeeyeyna Siyaad Barre waxa uu helay daacado kala duwan sida inuu qaatay digtii ugu horeysay 1954 iyo sidoo kale sargaal ilaa 2 xidig loo dalacay sanadii 1955. kadib markii la dhisay ciidanka xoogga dalka waxaa hogaamiye looga dhigay Jaale Maxamed Siyaad Barre,
waana kadib markii uu geeriyooday janaalkii ku horreeyey ee jenaraal daa'uud cabdulaahi xirsi waxaana loo soo dallacay siyaad barre darajada sarreeyo kuuto. bal aan u soo laabanno wakhti uu xilka hayay jaale maxamed siyaad barre kadib markii ay dowladdii gacaanka ay ku dhawaaqeen in iyaga ay yihiin hoggaanka ugu sarreeya dalka intii u dhexaysay 1969 ilaa 76 siyaad barre waxa uu xilka ku hayay qaab afgembi ah ilaa laga soo gaaray 1 Luulyo 1976 ayuu noqday jaale maxamed siyaad barre madaxweynaha rasmiga ah ee dalka Soomaaliya. waxa uuna hayay xilka ilaa 1991 haddii aynu fiirino waxyaabihii uu qabtay dalka sanadahaasi uu xilka hayay waxaa ka mid ahaa in horumar ballaaran lagu sameeyey caafimaadka, waxbarashada, dhaqaalaha iyo inuu dib u soo celiyey xiriiradii dibadda, wuxuuna dhisay hay-adda nabad sugidda iyo sidoo kale xikmad loogu arrimiyo arrimaha bulshada, waxaana garsoorayaal looga dhigay kuwa ka mid ah madaxdii dowladdii gacaanka. iyo sidoo kale waxa uu dhisay jaamacaddii ummadda maxaa yeelay xilligaasi waxbarashada ma gaarsiisnayn ilaa heer jaamacadeed. si taasi xal looga helo waxaa la furay jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed. sidoo kale dowladdii gacaanka waxay soo saartay nidaam iskaa wax u qabso ah oo lagu dhisay waddooyinka iyo dugsiyada. sidoo kale mid ugu muhiimsan ay qabteen dowladdii gacaanka waana ilaa maantada la iloobi karin ayaa ah qoristii farta Soomaaliga, waxaana la bilaabay ololo lagu doonayo qorista farta rasmiga ah ee Soomaaliya. si taasi loo helo waxaa la fasaxay dugsiyadii muddo sanad ah, waxaana tiro badan oo isugu jira macallimiin iyo arday loo kala diray daafaha dalka, gaar ahaan baadiyaha dalka. sidoo kale waxaa horumar lagu sameeyey ciidanka xoogga dalka oo aad loo qalabeeyey xilligaasi, waxayna sidoo kale ay la soo wareegtay Soomaaliya dhammaan gacan ku hayntii bangiyada. dib u gulahaas iyo horumaradaasi ballaaran ayaa Soomaaliya ka dhigtay inay gaarto heerkii ugu sarreysay xilligaasi, waxayna ka mid noqotay dalalka farakutiriska ah ee ugu sarreeya Afrika iyo guud ahaanba adduunka. bas markaani waxay u eg tahay inay soo dhammaadeen wakhtiyadii qurxoonaa ee dowladdii gacaanka, waana halka ay dhibaatada ka bilaabanayso. waana kadib markii ciidanka xoogga dalka oo cundun ahaa markaasi ay galeen dagaalkii 1977 ee Ugadeeniya. ciidanka xoogga ayaa si geesinimo leh ugu difaacay xabashada xuduudihii dalka iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo isxiga sida inay siyaaday qiimihii dibadda iyo sidoo kale adeegsiga qabiilka oo qabiil kasta waxa uu samaystay jabhad u dagaalamaysa magaciisa oona muxlaafiyey magaaladii caasimadda. dowladdii gacaankana waxay u muuqatay mid sii dhacaysa oo aad moodidba inay daaleen shaqaalaheedii markii ay jabhadihii ay si toosa ula wareegeen magaalada caasimadda. jaale maxamed siyaad barre waxa uu magangelyo siyaasadeed u weydiistay dalka Nigeria. kadib taasi Cali Mahdi ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweyne ku meel gaar ah sanad 1990, laakiinse nasiib darro dowladdiisa ma shaqayn. waana kadib markii uu ka hor yimid jenaraal maxamed faarax diin intii u dhexaysay 1995 ilaa 2000 dalka ma lahayn wax dowlad ah, waxaana dalka ku jiray xilligaasi dagaalo suukeeya. 22 Agoosto sanadii 2000 ayaa waxaa xilka dalka qabtay Cabdiqaasim Salaad wuxuuna xilka hayay ilaa laga gaaray 2004. kadib markii uu dhacay wakhtigiisa waxaa imaatay dowlad federaal ah oo uu madax ka yahay Cabdullaahi Yuusuf, isagana waxa uu xilka hayay ilaa laga soo gaaray 2008. 31 Janaayo 2009 waxaa xilka qabanayo Shariif Sheekh Axmed, isagana sida kuwii ku horeeyay waxa uu xilka haynayaa 4 sano. kadib dhicitaanka dowladdiisa waxaa imaanaysa dowlad jamhuuri ah oo uu ka talinayo Xasan Sheekh. 4 sano oo xilka hayna kadib waxaa dalka lagu qabanayaa doorasho, waxaana doorashadaasi soo baxayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wuxuuna sidaasi ku noqonayaa madaxweynihii sagaalaad ee soo mara dalka. wuxuuna xilka haynayaa asagana ilaa laga soo gaaraya 2022, waxaana dalka mar kale ka dhacaya doorasho loo dhan yahay, waxaana mar kale nasiib u yeeshanaya oo dib ugu soo noqday xilka Xasan Sheekh, oona ilaa maantadani ah madaxweynaha ka arrimiya dalka. waxaana lagu balansan yahay in doorashada xigta ay dhacdo sanadda 2026, waxaynu sugnaaba waa inaynu aragnaa madaxweynaha tobanaad ee soo mara dalka iyo wixii uu noo qabta asagana haddii uu eeboweyne idmo.